dadka deegaankeedu waxay u yaqaanaan haweeneyda ugu foosha xun adduunka qaarkoodna waxayba shaki geliyaan inay tahay qof bini'aadmiya waxayna ugu yeedhaan daanyeer balse iyadu waxay isku aragtaa haweeney aad u qurux badan isla markaasina soo jiidasho leh waxayna wakhti badan ku lumisaa marsashada waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaano make-upka ciddaan ka hadlaynaa waa haweeneyda 30 sano jirka ee Mary oo rag badani u diideen inay xiriir jacayl la sameeyaan muuqaalkeeda guud aawadeed warbixintan ayaan ku eegi doonaa faallada gabadhaasi fadlan falowde like nasar bogga Facebook ee Maxamed Deeq Xaashi kana mid noqo kumanaanka ku xidhan wararka iyo warbixinaha aanu sida maalinlaha u soo gelino bogga Facebook ee Maxamed Deeq Xaashi siina faafi muuqaalkan mahadsanid daawaday dadka ku nool deegaankeedu waxay ugu yeedhaan haweeneyda ugu foosha xun adduunka waxayna ku tilmaamaan inay tahay daanyeer ama xayawaan kale oo aanay ahayn qof bini'aadmiya foolxumadeeda darteed balse iyadu waxay leedahay qorshayaal ay ku horumarinayso quruxdeeda waxayna waqtigeeda ku bixisaa sidii ay u noqon lahayd xeeldheere khibrad iyo aqoon dheeraada u leh habka iyo hanaanka marsashada waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaan make-upka magaceedu waa Mary waa 30 sano jir waxayna isku aqoonsan tahay inay tahay qof qurux badan dadka arkaase waxay ku qoslaan muuqaalkeeda guud haweeneydan ayaa waxa warwariga walaac ku haya inay tahay 30 sano jir aan weligeed guursan sababtana waxay ku sheegtay in rag badan oo ay isku dayday inay xiriir jacayl la samayso ay ka diideen iyagoo diidaya muuqaalkeeda guud iyo madaxeeda bartimaha leeyahay inta kalena bannaan tahay Mary ayaa la weydiiyey ma adiga ayaa ku gacan saydha wiilasha mise iyaga ayaa ka diida inaad xiriir jacayl la samayso waxay ku jawaabtay iyaga ayaa ku weydiida mar kale ayaa la weydiiyey sababta ka dambaysa arrintaasi waxayna farta ku fiiqday in sababta loo diidaya ay tahay muuqaalkeeda guud dadkuna ku tilmaamaan inay tahay sidii xayawaanka daanyeerka balse haweeneydan ayaa iyadu qabta aragti taasi ka duwan waxayna sheegtay in marka ay hor istaagto muraayadda isla markaana ay isku daawato inay isku aqoonsan tahay gabadha ugu quruxda badan adduunka ee ay weligeed aragto in muuqaalkeeda guud ka duwan yahay dadka intooda kale waxba kamuu bedelin nolol maalmeedkeeda waxayna dhex musheexdaa dariiqyada iyo wadooyinka waaweyn ee suuqyada iyadoo aan wax khajilaada ka qabin kumanaanka qof ee maraya dariiqyadaasi Mary ayaa sheegtay inay quruxduba tahay inuu qofku ku kalsoonaado qofnimadiisa isla markaana iska indhasaabo waxyaabaha ay bulshada inteeda kale ku tilmaamayaan dhanka kale haweeneydan ayaa ruucloorad ugu jirta horumarinta quruxdeeda si ay meesha uga saarto dacaayadaha kala duwan ee ay kala kulanto bulshada qaybaheeda kale taasina waxay sababtay inay adeegsato agabka kala duwan ee dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaano make-upka si ay u yeelato muuqaal soo jiidasho leh haweeneydan ayaa diiday in timaheeda ay wada xiirto waxayna sababta ku sheegtay inay noqonayso qof foolxun Mary markii ay yarayd waxay ku hamiyi jirtay inay noqoto qof modela ama sadherka xayeysiisa arrintaasina may noqonin mid u suurta gashay haweeneydan balse hadda waxay mar kale rabtaa inay noqoto farsamo yaqaanad ku xeel dheer habka qurxinta dumarka ama samarinta make-upka Mary hadda waa shaqo la'aan waxayna guri wada degan yihiin haweeney kale oo ardayda noloshuna way ku adag tahay dad badan ayaa ku kala aragti duwan hab nololeedka gabadhan qaarkood ayaa ku tilmaama geesiyad han iyo himilo sare leh halka kuwa kale ku qoslaan kana dhigtaan maad iyo madadaalo isla markaana ay ku tilmaamaan daanyeer